بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناغسان داوديال كسو dhawaada warka Sooyaal TV waxa weynima talaada 4 ay soo galayso taariikhdu waxay ku beegantahay 18 bisha May sanadka 2021 qodobada ku daawan doontaan warka Sooyaal TV waxa ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida wax kuna kala duwan kurida dadkii loo haystay dilkii Allah u naxariisto gudoomiyaha degmada Hodan wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Hirshabelle oo soo gaaray magaalada Beledweyne بلان هم ممنوعي بورك لو قرا افك قلاد جبلان oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan shirka loo balansan yahay 20 bishan ee loo hadli doono arrimaha doorashooyinka akhbaaradka caalamkana waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Turkiga oo Mareykanka ku eedeeyay taageerada uu siinayo Israa'iil qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka Sooyaal TV balse marka hore daawadayaal u diyaar garoob warka oo faahfaahsan kusoo laabasho wanaagsan daawadayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aan ku bilaabay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay waxay xukumo kala duwan ku riday dadkii geystay Allah naxariisto gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon waxaan warbixin amuurtaas la xiriirno faahfaahinaya wariyaha Sooyaal TV Mahad Dhukano Yuusuf maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay maantay xukun ku riday rag loo haysto dilkii magaalada Muqdisho lagu geystay 22 bishii Janaayo ee sanadkan gudoomiyihii degmada Hodan Allah u naxariistay Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon maxkamadeynta rag loo haystay dilkaasi oo gaarayay ilaa 6 ruux ayaa isugu jiray saraakiil iyo askar ka tirsan booliska Soomaaliya waxaana ay soo martay heerar kala duwan iyadoo ugu dambeyn maanta la xukumay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo guddi u saaray baaritaanka kiiska dilka gudoomiyihii degmada Hodan ayaa waxa ay horey u sheegeen in falkaasi uu dhacay si ku talagal ah taasi oo keentay in kiiskiisa loo gudbiyo maxkamadda xirilaaliyaha maxkamadda ciidamada Cabdullaahi Bulle Kamey ayaa dhowr jeer sheegay in dilkaasi uu ahaa mid ku talagal ah isagoo dalbaday in eedeysanayaasha lagu xukumo dil toogasho ah oo ciqaabta dambiga ay galeen maxkamadda ciidamada ayaa war ka soo baxay waxa lagu sheegay in kiiskan uusan ahayn mid ku talagal ah balse uu ahaa shil dhacay waxaana maanta ay xukun ku riday saraakiil iyo askar loo haysto dilkaasi kuwaasi oo xukunkoodu uu dhacay sida tan taliyihii hore ee saldhigga booliska degmada Howlwadaag Shucayb Cabdi Maxamed oo lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidana sabab la xiriira inuu ka gaabiyay howlihii loo igmaday iyo baxsadka mid ka mid ah ilaaladiisa dable boolis Bishaar Axmed Cabdi oo isagana 5 sano lagu xukumay halka min 2 sano oo xabsi ah lagu xukumay Jamaal Isxaaq Cali Dhiblaawe Ibraahim Yuusuf Farax Sabriya Afrax iyo Kulmiye Kaariye Cali sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa dhammaan xukunsanayaasha waxa ay saartay bixinta magta oo hadiye adag iyo sidoo kale magdhowsiinta Ibraahim Abuukar Cismaan iyo Liibaan Xasan Liibaan oo shilkaasi uu dhaawac ka soo gaaray kasoo xukunka maanta lagu riday rag loo haystay dilka gudoomiyihii degmada Hodan Allah u naxariistay Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon ayaa waxa maxkamadda ay horey u sii deysay taliyihii hore ee booliska degmada Waabari Cabdiqaadir Mooshin iyo ilaaladiisa kadib markii dambi lagu waayay Mahad Dhukano Yuusuf Sooyaal TV Cabdwaq مسؤولين ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle oo magaalada Beledweyne u gaaray xalinta colaad beeleed ka jiray maalmahan deegaanada Hirshabelle waxa warbixin amuurtaas la xiriirno faahfaahinaya wariyaha Sooyaal TV Mahad Bashir Xilif wafdi oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isxaaq oo ay ka qayb ahaayeen xildhibaano iyo wasiirro iyo senataro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta u gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wafdigan ayaa waxa kamid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Cabdifataax Qaasim wasiir dowlaha cadaaladda iyo garsoorka Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno kamid ah labada gole ee Hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabelle maamulka gobolka Hiiraan iyo waliba mas'uuliyiin kale ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo hadallo soo dhaweyn ka jeediyay maamulka degmada Beledweyne ayagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay mas'uuliyiintani kala qayb galaan xal u helidda colaado ka jiray maalmihii dambe deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne marta la jecel yahay insha Allah bidna al-kariim soo dhawaado dalkiina ku soo dhawaado dadkiina ku soo dhawaado
muxuu ahay xoogaa shaqaaqa yara aad jirtay shaqaaqadaas insha Allah biidna kariim annana qayb gashayna insha Allah waa rajaynayna magaalada Beledweyne maalmahan waxa ka jira dagaal beeleedyo oo dhowr dhinac ah waadinku mahadcelina xaqiiqda inaad nagala soo qayb gashiin oo maaragtay culeysyada jira aad nala xalan doontiin maaragtay aan ku guuleysan doono waa rajaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan Cabdifataax Qaasim iyo wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Yuusuf Xuseen Gamaandi ayaa ka warbixiyay socdaalkooda iyo waliba waxyaabaha ku saleysnaa waa mid waxaan ugu baaqayaa labada dhinac xasuusinaya isla markaana Ilaaha iskiin baday waxaad tihiin dad walaalo mar waxaad walaalo ku tihiin islaamnimada mar waxaad walaalo ku tihiin Soomaalinimada mar waxaad walaalo ku tihiin Hirshabeelnimada mar waxaad walaalo ku tihiin Hiiraannimada mar waxaad walaalo ku tihiin reer Beledweynenimada marna dadka kale waa isaga sokeesaano xigaal iyo daris taariikh ahaan iyo deegaan ahaan ayaad isu xigtiin waa ayaan dara marka annagoo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo waa wax runtii aad looga xumaado iyadoo wiliba bilihii xurmada lahaa waxa weeyaan lagu jiro bil Ramadaan ay tahay marka inta ka badan ma lumin karno wiil kale oo waxa weeye macna dara ku dhinta ujeedkan u nimid waxa weeyaan dhibkan taagan iyo colaadahan gobolkan maanta yaani ka socda nolosheega waliba meelaha hor leh hataa inay ka jiraan waa ayaan daro qarni 20-aad marayna dunida aan maanta ku noolnahay waxay ka tagtay wadan inay dawlad u ahaato qaarad ayaa loo socdaa waxa lagu xisaabtamayana waa dad iyo wadajir iyo midnimo qof kasto dunidan ku noolna maalmo kooban ayuu joogayaa dadka muslimiintana mas'uuliyad gaar ah qof kastaba saaran marka waa ayaan daro marka magaaladii qadiimka ahayd ee taariikhiga ahayd waxa maanta halkaan dhigay oo aaminsanahay magaalooyin ka dambeeyay 100 sano inay ka dambayso runtii nolol ahaan iyo muuqaal ahaanba waxa weeyaan waa kala qoqobnaanta iyo kala irdhaynta iyo waxyaabaha maalin kasta taagan aawadood runtii sharafay noo tahay inaan soo gaarno magaalada Beledweyne caasimadda gobolka Hiiraan annagoo wafdigaas heer state iyo heer federaal isugu jirno ulajeedka ama hadafka safarkeenana uu yahay shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii ayaan darrada ahaa ee foolxumada ahaa ee magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhaxmaray dad walaalo ah ehel ah xigta ah xigaala ah arrinkaas ayaan damqashadiisa darteeda ayaan u soo dhaqaaqnay waxaan rajaynaynaa juhdigii iyo dadaalkii horay u jiray maamulka gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ay horay u wadeen ayaan rabnaa inaan beerino xoojino muxuu ahaayay talada la qaybsanno garab istaagno wixii dhinayna aan la dhamaystirno wixii muxuu ahaayay dhibaato ah jirayna aan wada xallino ulajeedka safarkeena waa sida ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo waxaan u soconno waa maslaxa iyo sulux baynanaas aan u soconnaa waa sulxu wafdigan ayaa Beledweyne u soo aaday xal u helidda colaado maalmihii dambe ka taagnaa deegaano hoos yimaada magaaladaasi Beledweyne ayadoona la filayo in saacadaha soo socda ay arintaasi galaan waa Mahad Bashiir Ismaamaad xilif telefishinka caalamiga ee soo yaal Cabdo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxay mamnuucday in boorarka lagu qoro afafka qalaad lagu dhagsado goobaha ganacsiga waxaana warbixin amuurtaasi la xiriireen oo faahfaahinaya wariyaha soo yaal TV Deeqa Jaamac Maxamed Deeqa Degan wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland ayaa amar ku bixisay in dhammaan qoraalada boorarka iyo magac bixinta ee ku qoran afafka qalaad loo bedelo afka Soomaaliga qoraal ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamed Ciise Cusmaan ayaa lagu amray qof kasta oo doonaya in uu boor samaysto si uu u dhagsado ama goob ganacsi furanaya inuu isticmaalo afka hooyo ee Soomaaliga sidoo kale wasaaradda
xukuumadda waxa ay sheegtay in iyada oo tix raacaysa xeerka ilaalinta afka Soomaaliga kaasi oo faafitaankiisa rasmiga ah ku soo baxay 15 Diseembar 2020 kadib markii golayaasha dawladdu ay ansixiyeen. Deeqa Jaamac Maxamed Deeqa Degan Soyal TV magaalada Caabudwa. maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay mowqifkiisa ku aadan shirka loo balansan yahay 20 bishan ee lagu falanqeyn doono arrimaha doorashooyinka waxaana warbixin amuurtaasi la xiriirta inuu eegayo wariyaha Soyal TV Farxaan Suldaan Xaaji Farxaan Anshax. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa cadeysay mowqifkooda ku aadan in shirka wada tashiga doorashooyinka ee dhawaan cilaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kaasoo la filayo inuu dhawaan ka furmo magaalada Muqdisho. wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaani ayaa sheegay in Jubbaland ay soo dhaweynayso qasoomida shirka isaga oo rajo wanaagsan ka muujinaya waxyaabaha ka soo bixi doona. sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble laga doonayo inuu cadeeyo in ummadda Soomaaliyeed uu dhex u yahay lagu kalsoonaado dhankoodana ay dadaal weyn gelin doonaan sidii Soomaali wadada saxda ah ugu soo noqon lahayd. maamulka Jubbaland ayaa kamid ah maamulada soo dhaweynaya shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kaasoo qabsoomaya 20 bishan oo maalin kaliya ay ka hartay. Farxaan Suldaan Xaaji Farxaan Anshax Soyal TV Caabudwa. haatan akhbaaradka caalamka madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu Mareykanka ku eedeeyay taageerada uu siinayo Israel oo gumaad ku haysa muslimiinta reer Falastiin. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu gacmaha dhig ku sito sabab la xiriira taageeradiisa dagaalka Israel ay ku qaadayso marinka Gaza. hadalka Erdogan oo ku jiray khudbad telefishinka uu ka jeediyay dalka oo dhan laga dhageystay ayaa ahaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado Biden tan iyo markii uu xukunka yimid bishii Janaayo. waxaad gacmaha dhiig leh ku qoraysaa taariikh waad nagu qasabtay in aan sidaan dhahno sababtoo ah intaan ka badan kama aamusi karno arrintan ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa taageero xoogan kaga kasbaday bariga dhexe oo oleynta qadiyadda reer Falastiin 18 sano ee uu xukumayay Turkiga. waxa uu toddobaadkii tagay ku eedeeyay Israel inay qaadayso argagixisanimo wuxuuna wacad ku maray inuu dunida isugu keeni doono difaaca Gaza. maanta waxaan aragnay saxiixa Biden ee hubka loogu iibinayay Israel ayuu yiri Erdogan isagoo ka tixraacay warbixino ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka oo ku saabsan in maamulka Biden in ay ansixiyeen in hub loo daadgurayo Israel. reer wuxuu la circiraya cadaadis iyo rafaad iyo dhiig si la mid ah dhul badan oo ku nabad waayay burburkii Cusmaaniyiinta adigana midaas ayaa taageeraysa ayuu yiri Erdogan mar kale. waxa uu sidoo kale ku dhaleeceeyay Australia inay sare u qaaday calanka Israel toddobaadkii tagay iyadoo oo muujinaysa isgarab taag. waxaan cambaareynayaa Australia inay sare u qaadeen calanka dowladda argagixisada ayuu yiri Erdogan. Erdogan ayaa wada olole diblomaasiyad uu doonayo in cunaqabatayn iyo ciqaabo kale lagu saaro Israel oo tan iyo kiimay duqeyn ka wada marinka Gaza halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 60 carruur ah. daawadayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay wixii aynu dalka iyo dibadda kaga haynay. warka waxay la socodsiinayaan anigoo Ahmad Wiil warsame dhanka kaamirada waa Farxaan Anshax iyo farsamadii Mahad Bashir Xilif. inta aynu ku kulmin doono warkan warka xigana waa guud ahaan bahda Soyal TV isku duuban oo idin leh nabadgeliyo.